waxaana loo ballana in wanaagga laga wada shaqeeyo in dowladnimada la deeqdee laga wada shaqeeyo ninba maalin uu meesha joogaahe ninba maalintiisa lala shaqeeyo dowladnimadana loo hoggaansamo wixii sharci ku maqan sharci lagu raadiyo wixii sharciyana sharciga lagu maamulo intaas inta fahansanna waa u mahad celinayaa inta aan fahamsanayna waxaan leeyahay ilaahay soo toosiyo waxaa laga yaabaa in dadku yidhaahiin duqu xoogaa ama uu xanaaqsan yaho qolooyinkan xafiisyada dowladda ku jiro meesha sharci la'aanta kula xaraysan ama uu dhib ka qabaa maya aniga hal qofa oon dhib u qabaa ma jirto hal qolaa oon dhib u qabaana ma jirto qof kastoo wax iga tirsanaysana waxaan rabaa inaan cafis ka dalbado qof kastoo aniga isle waad ka hadlaysana waxaan idii caddaynaya howlmiidiyaha idiiga sheegaya qof kastoo islaam ahoo bila'aadana gaar ahaan dadka reer beledweynaha ama reer hiiraana ama reer hiirshabeellaha qofan wax u haystaa aakhriyo adduun ma jirto kulligood cafiyo masaabixay iga yihiin hadday hallaabaan waa naga dhexeeyaan hadday hagaagaanna waa naga dhexeeyaan waxaan laga tashanno oon waa hallaabayin in la iskhilaafo iyo khilaaf macnihiisana waa aragnay waa dhidhaminay haddii hadda aan wax ku gaaraynana meeshiyaa laga sii wadi doonaa hoo raggii khilaafka wadaa meeshiisa ka sii wadi doono haddii aan waxba ka soo baxayna hadda weli muslim waa qaldamaahe inaan wax wada saxanno wax ka wada tashanno oo wanaaggii ka wada shaqayno oo waxa naga dhexeeyo wanaagga ka qaadanno wixii kalena maaragtay meel lagu xooro aniga sida rabaa saas waay haddii hadda khilaafkii weli ou loo dhiman yahana khilaaf ma keeni kartiin qof la leeyahay ma jirto dadku waa xur waxbaa ka dhexeeya nidaamkaana dadku ka dhexeeyaa in laga wada shaqeeyo ninba maalin shalay nimanaa madax ka ahay maanta nimanaa madax ka ah biri nimanaa madax ka noqon doono haddaan nidaamka laga wada shaqayna maantana mid madax ka wuxuu ka shaqeeya ma leh dadka kalena uu ku hogaamiyo birina midka imaana wuxuu ka shaqeeya maba u imaanayaba oo hadda waxa laga yaabaa in meesha lagu kala tago walaxan sharci ahayna gurgaana iridaan lagama soo geli karo iridaan meel ahayn lagama soo geli karo dariishadaan lagama soo geli karo korna lagama soo geli karo ma raba inaan ku dheeraado dadka Soomaaliyeed oo walaalaheeyo oo beledweyne jooga waxaan ka codsanaa inaan tashanno waxa laga dhaxeeya ka tashanno wixii laga anfacana aan isla qaadano oo la wada anfacaho qof kaligeer anfacay wax qof anfaca lama rabaya qof kaligeer wax u gaara lama rabo wax dadkoo dhan anfaca iyan talo ay noogu soo baxdo talo ka tashanno aan isla qaadano intaasaan u dhaafi rabaa waxaan kaloon ku dari rabaa ayaan dhaweed magaaladan soonkii habeenaa xabada ka dhaceen baabuurtayda beledka xeradan ku jirta beledka iyo la geeyaa lagu xabadiyey dad soomana lagu xabadiyey aniga layma sheegin mana ogeyn haddana waa caddaynaa inaan ogeyn wixii dhib ahaa oo dadka ka gaaray ama wixii dhibsaday raaligelinaan ka bixina amarkayga ma ahayn taladayda ma ahayn waxaas dee say u dhaceenna waan ogeyn si ilaahay loogu saqirana waan ogeyn waxaanan leeyahay intii hadda aniga si gaara wax iga dhibsatay raalli mar labaad ha ahaato intaasaan uga bixi rabaa waxaan soo geli rabaa aniga sida wasiirku sheegay safarkaaynu hadda wuxuu u soo degdegay duubka ugaaska inaan kaalintayna ka buuxinno muddana waa laga shaqaynaayo oon meelaa lagu guddi ayaa jira
ugaas duubka xawaal lagu bixiyey inkastoon hadda meel laga magacaabay aanan aqoon haddana waa guddi xawaalaah oo xawaal lala baxay oo ugaaska duubkiisa loo bixiyey ma dalkaa laga bixiyey ma dibaddaa laga bixiyey ma aqaan ma la isku daray ma aqaan laakiin waxaan malaynay inay xawaallo yihiin guddigii ugaaska duubkiisa ka shaqaynayeen ay yihiin dhaqan iyo dhallinyaro iyo ganacsato iyo siyaasiyiin ay iskugu jiraan inuun ugaaska la duubaana muhiimaddu tahay wax kaloo hadda qof gaarahoo wax gaara samaysana uma jiro ugaaska inaan duubi waynaa annaga ceeb lagu tahay inuu intuu duub la'aay oo duub la'aado ugaasidii ka horreeyey ma duub la'ayna inuu intuu duub la'aay duub la'aado dadkaanay ceeb ku tahay oo ugaas u noqon rabo wax kastoo marka la kala jijiidaya la iska dhaafo inaan ugaaska duubno go'aankaynu ha ahaado inaan ugaaska duubno go'aankaynu ha ahaado hana la istixgeliyo waxaan maqlahay nimanaa 2 bilood shaqaynaayo oo meel sharaxaayo oo amni ka shaqaynaayay dadkaana cadow fara badan ay leeyihiin cadow caalamihay leeyihiin oo dadka kale Soomaaliyeed lahayn ama si khafiif u leeyihiin ayagu si adag u leeyihiin magaalada waxa la damacsan yahay dadkan ugaaska duuba raba oo xaggaan tagayna ayagu isku haya waxa la damacsan yahay ilaahay ka laga badbaadiyaan leeyahay laakiin cadowgoodu hubiga uu dhinaca kale ka taagay bari loo taagay ushii la tuuraa waa ku dhace mana heshiin seen hadda ku heshiinaynana ma naqaano dadku u geedirnaan waa heshiiyaane haddaan dhul laga dhaxeeyo ku heshiinayna aanan ogeyn oo deegaan loo qaybina wixii laga dhaxdhacayna loo maslaxa aanan ogeyn walahay ayaga wakiil looga yihiin oo anaga wakiil uga dhaganana aanan ogeyn ma naqaan walahan kala heshiin ma naqaanba ma deegaan ilayhiin aan u dhaafaynaa ma dadkaanay ka mid yihiin oo qabiil ka mid waayo waa lagu soo daraa dadkaas ajnabiga iyo Soomaalida iskugu jira oo al-shabaab oo diinta iyo been ka sheegay dalkan ugu soo gabaday dadkan waa islaam oo diinka islaamka u jecel yahay ku dulmiyo ku dhibaatay oo diinkooda beenta ka sheegay oo diinkooda ku dulmiyay oo ku qayaanay oo naftooda iyo maalkoodaba u bareeray walax dabboon kala macaamilaynaa huma jiraan meeshaan ama waa noo dhaafayaan ilaahayna dejiyo nagu abuuray Soomaaliya qoloba meela ilaahay dejiyay dawladnimo iyo wixii la mid ah isku darsataana ka dhaxeeyay ama waa isdilaynaa san isku dilayn ayaguna qoragooda waa haystaan hadda iskama dhigin anuguna waa haysanaa kayn ilaahayna naba wuxuu ka shaqaynaa asaa'uk kulana xisaabtama adduunkan iyo aakhiro nimana marka 2 bilood duubka ka soo shaqaynay anaga dhagahan ka maqlayn dad xawaalaahay ahaayeen nimanka jooga xawaalaha jooga buulo burtay si gaar ah ugu mahadcelina aad iyo aad ugu mahadsan yihiin ilaahay haydi karaameeyaan leeyahay sharafay leeyihiin waxaan uga mahadcelinaa say ugaaska u soo dhaweeyeen mugo u yimid siday u maamuusaanay qoloba maalin u maamuusi oo xawaaloo dhammo isla socdo ugaaska la socda qolo jifaha u maamuusi waa uga mahadcelinayna laakiin waxaa la rabaa in lees xusbeeyaa la rabaa khilaaf ugaaskan duubkiisa wuxuu soo gaarsiiyey 2 sano iyo xoogaa khilaaf kale looma baahno walaalayaalo nimana 2 bilood meel sharaxay anuun hadda nin kama aqaan adu kula doraadaad sheegteen ceeldheeraa la geynaa tiriino ugaasyada la gey jira
aniga haddii tiga weyn uma badnee aniga ugaas khaliifoo noolaan soo gaaro talina 56 sano oo ugaas ayaa la yidhi allah u naxariistee asigana meelaha anaa sandhool iyo ugaas la imaad la yidhi ayadoo niman mariixaanays haayaan sandhool sandhool loo geel la jiro oo macawisu soo macalkii oo go'a laba go'o cad u soo xilaal ila soo subxi keenuu ugaaskiga waa 56 sano oo ugaas haay dadkaanu marka waxay arkeen ugaas cabdiraxmaan iyo ugaas xasan mid waxa lagu duubay ceeldheer ugaas cabdiraxmaan oo ugaas yuusufka hadda la duubaana aabiis waxaan ku duubnay istaadiyowkan beled weyn ceeldheerna waa geeyleen daruufaa lagu kaliftay ilma adeerayaalow ceeldheerna hadda waxaa jooga oo saacadan idila hadlaa jooga shabaabaan la ballanana ma shaqaynayso shabaab iyo annagana macaamil iyo ballan lagama dhexeeyo sidii dad walaalaho wax ka dhexeeyaan inaan u warranana waa loo baahan yahay nimanka walaalahe oo warkaas sheegaa haddaan duub xawaadle jifaba ha u ahaadee ugama jeedin nimankii shalay hawsha loo dirayna maahan 2 biloodaa howl la wadaa niman xawaadlaha adinkoo kalaha wadaa meelay diyaarinayaan dadkaa loo sheega duubabaa yimid siyaasiyiinaad timid kuwana waa imaanayeen meel geed la hergala lahayn oo meel roob laga gala lahayn oon amnigeenu seef ahayn inaad tidhaahin waa ilaa ciidan meel ahayn la tegi maha war anigu hadda kaligay si gaara bir ugu dhaadi maa laakiin arrintaas laga tashado kuwii hore waxay sheegayeen kuwii hore oo 2 bilood shaqaynay waxay sheegaan xabba kama jiraan oo xawaalo u diray oo caasimadda hiiraan joogay aniga nabadoonidii xawaalo kulligoor jifo waa u aqaanay belgoynaan ku ogaay buulugta hal nabadoonaan ka ogaho jifaha oo la yiraahdo nin oday oo la yiraahdo akhyaar farax cabdi waar aniga nabadoon kale oo qabiilo jira ma ogiyoon aqaan hadda ma xusiisni inay jiraanna waa macquul laakiin nabadoonadu boqolkiiba 90 intay joogan xawaalo shaqaduna intay ka socotaa guddiga xawaalo dalii dibad laga magacaabana intuu ka shaqeeyo waay xildhibaanadii federaalkana waa yimideen madax kaloo badan oo Soomaaliyeed waa imaani mid kaloo xawaallahu dalii dibaday ka imaani duubo badan oo Soomaaliyeed waa imaanayeen haddana waa joogan meeshaan ahad iyo isniin iyo sibdiga maanta hal la iska daba imaado haya ceeldheeraan haddana idiiradayna oo shalay la go'aanshay oo shabaabaan la yiri waa idin dhaafayna war waxaas dad uma sheegi karno naftaynana uma sheegi karno walaalayaal aan ka tashanno nimankii 2 bilood hawsha soo wada warkoodii wax kama jiraan haddana annaga saaka waxaan go'aaminay la yeela xawaadle intuu u badan yahay taladu intay u badan tahay shaqadu intay ka socotay martidii intay joogtaa intay u soo socotaa inta guri la gala leh inta wax la cunaa u yaaliin walaalayaalow nin warramahan maqlaayo wuxuu leeyahay jifa reer hebel la yiraahdo 15 geel u joogtaa waa mahadsan yihiin 15 geel iyo wax ka badanayna kuwaas u bixi karaan oo anaaba og waana uga mahad celinaynaa waxay hore u qabteen waxay haddaan ka dib ay qabanayaanna waa garab istaagayna laakiin waxaa la rabaa talada xawaale khilaafa ugaaska intaan soo gaarsiiyay khilaafka in laga dhaafo xawaale waxaan ka codsana maantay tala ugaaska duubkiisa ha laga dhaafo khilaafka xawaale ha laga dhaafo anaga duubayna ninkii imaanaana ha yimaado ninkii ka maqnaanaana ha ka maqnaado ha laga dhaafo ma qabato dadkee ha laga dhaafo ugaasku waa ugaaskii xawaale ugaaska xawaale waxa loo yaqaan ugaaska ugaasiyada Soomaaliyeed Soomaaliya u taqaan anaga in dhaqankeedii lahaana loo baahan yahay dhaqankeedii in lahaano loo baahan yahay in ma isaasto tale xataa ugaasku ku duubtaan waay
inaan noqonnana looma baahna dadkuna lagama indhayana waana la dhegaysanaa waana lala joogaan walaalayaalow xawaadlow ama buulo burto jooga ama beledweyne jooga ama meel kasta joogo dalii dibada war taladu hadda intay u badan tahay intaana la joogaa martidiina intay ku soo bilaabatay haddii maalmo farsamo lagu daraa iyo haddaan maalmo farsamo lagu darayno talay ka imaani laakiin ugaaska duubkiisa la leexleexi maa la siyaasaday maha ilaahay ha laga baqo xawaalayaan la kala cuqdadayn khilaafiyaan la gelin ugaaskaas duubkiisa shaqadii socotay ninkii wax ku biiri karaa ha ku biiriyo isaa waxaan loo wadaa waxay leeyihiin nimanka buuluurta ka hadlaa walaalaygu meeshii ugaasyada la gey jiray ninka adoogiis waxaan ku duubnay ugaaska jooga hadda aabiis ugaas xasan waxaan ku duubnay istaadiyumkaan ku duubnay ugaas cabdiraxmaan celeeraan ku duubnay war heedhaha tala xawaalayna ahayd hadda nin amar siinay dadka ma jira annaga amnigaa la quseeya amnigaan ka shaqaynayna ceeldheerna saacaddan kadib amnigeena qof damaanad qaadi kartaa ma jirto meel saacaddan shabaab joogo oo ushii 4 koona shabaab ka jiro oo ushii la tuuraa shabaab ku dhici oo waxay ku oo bila ay sanad ku dhaway deganaayeen oo waxay ku duugeen la aqoon oo waxay ku soo duugi doonaan la aqoon anaga shabaab marti u noqon mayno martidaynana marti u noqon maayaan ugaaskaynana meeshaas in la geeyo aniga ma qabo fikirkayga waa duubkiisa in meeshaas loo rara ma qabo meeshaanaaba amnigeeda lala daalaan oo tala badan rabaa meeshaan amnigeedu tala badanay rabtaa in laga wada tashadaan ogolahay hadda qof maqan oo loogu cilahay ma jirto hadday federaal ay ku matalayaan dadka waa joogaan hadday state ku matalayaan waa joogaan hadday odayaashii xawaalo yihiin waa joogaan cid kasta mujaahidiintii shabaabka la diriri jirtay waa joogaan ganacsatadii waa joogtaa beledweynena loogama badna dadka ugaaska duubana warnimada geed cidlaa haddaan kadib ugaaskaan u raraynaa yaana dhihin oo dadka yaanay lala yaabine annaguna yaanay iskhilaafine nin 2 bilood shaqaynaa nin shalay oo amar ku dul bixine waxa talay ku daawo ku leeyihiin talo arrinta la geliyo annaga taladaasana niyo wasiirada la socday xilbaanada la socdaa u nimid abnigeena kaalintayna ka buuxino talada kaalintayna ka qaadano wax muwaafaqo lagu yahay oo ugaaska duubkiisu ku baaqan laga wada shaqeeyo horay loo socdo waxba aan la kala jiidan aniga sidan soo jeedina hor rabaan saas waa haddii la yeelo alxamdulillah haddii la yeeli waayana hadda anigu dadka horay lama horroogsan rabo waxay waa aragti soo jeedin waaye ilaahay ana qof walba waxay ka shaqayno fiiri beledkan waxa lagu hayaa la yiri madaxweyne ku-xigeenku wuxuu diiday kuraas ugaaska lagu duubi rabay beledkan lagu xawaalo isku sheegsheega la yiri bal odaga xawaalo isoo weydiiyay aniga kuraasta nimanka guddiga anigu maba aqaan ninka ka mid ah aniga isoo weydiiyay kuraasta qofka ila macaamilo duubka ugaaska waxaasaa laga rabaa ama saasaa loo duuba yiri inuu xawaalo u sheego anigana igu cadeeyal la rabaa wax kasto kaalinta ugaaska duubkiisa ah aniga kaalintaydu waa ka buuxin haddaan noolahay waana u imid walax horay leegala macaamilo macaamilkooda ku heshii waynana ma jiraan ina oon isbarabagaanana xaba ka soo bixi maayaan been haddii la sheegana ilaahay aan u jeedo xabana lagu gaari ma marka aniga aad ugu canaayo ma oo inaan waxaan ahayn leega dhigo oo been leega sheego oo waxaan dhihin leega alifana aniga waaba aqaana walaahay ugu cusub ma walaalay soo dhawaada maanta dhammaan dadku qorax taagnaay waqti adaga la joogaa mar labaad iyo mar saddexaad aan idin mahad celina